markii aan guulaysan waayay dalka kama aan tegin waan joogay 5 sano bulshada ayaan dhex joogay oo aan ka shaqaynayay inaan isku dayo toosinta dawladda difaaca xuquuqda muwaadinka وهيلنتا أما أهلت ضدك إيديانا ضمن وعيقلنت الجوتاء أصلا بالشدة وأن كلها لي أرمها دولة نمدا يدول وناجا انتبه وحصل إذا وحيجس وجار لبعض أفراد صار الله سعتان ويسوق جرا دي اللو جيستي سراكيل عيدا إلى هذا ده دعاية الله سخيري كنا نكون وقف وأنا هو جهن عبورين عن كلا كل إعداد سحوق له ودلك جديسة يدوديسة واللي صاري والدبلوماسية دي حوقي دولة ده لا يدك سدي وحيجسي ورئيس الله سعتان لبقي 8 سنة قال لها عبد الرحمن عبد الشكور بدأ يبسدي انت صدق وحنو هيستا ان امتحان وهي ولا تجابينها هي انت واللي اجي دلقات كيغا انت واللي اجي صبر كيغا انت واللي اجي موقف انا كسغنادو انت واللي اجي ادكيسيغا اما جكسيغا انت واللي اجي هي ان انا هوغان اقلمه دلكان iyo dadkan inuu hogaamiyo waxaan rabaa qof kasta oo dib ii geystay hadduu yahay mid gacan ah ama haddii yahay mid af ah ama hadduu yahay mid qalbi ah intaba inaan iska cafiyo idinkana aan cafis i weydiisto mudanaan i marwooyin sidaa la socotaan dalkeena 5 sano la soo dhaafay dhibaatooyin badan ayaa ka dhacay socotaan boosaas colaada ka dhacday dhuusamareeb colaada ka dhacday beledweyne colaada ka dhacday xamar dagaal ka dhacay gedo waa ka dhacay baydhabo waa ka dhacay meel kasta waxaan dhihi karnaa caasimad dowlad goboleed ah iyo caasimadda Soomaaliyaba ama caasimadaha labaadba oo dowlad goboleedyada dagaal ayaa ka dhacay dagaaladaas waxay salka ku hayaan siyaasad ma aha dagaalo hadda qabiilooyin isdagaaleen waa dagaalo siyaasad la isku dagaalay sidaas daraadeed dalkani wuxuu u baahan yahay marxaladda soo socota hoggaan u istaagi kara dalkaas inuu dib u heshiisiinka dhacabuuro isugu yeera 5 sano la soo dhaaftay waxaan u taagnayn oo halku dhig noo ahaa oo ku celcelinayna mar walbaba dalkan in lagu wadi karo is-ogol iyo talada guddoonkeeda loogu midaysan yahay taas ayaana keentay barnaamijka siyaasadeed ee aan soo bandhignay in hor yaalla inuu aasaas u yahay wax la yiraahdo wada jir oo ah anaga wada jirna iyo wada tashi talo wada tashi ku dhisan labadaas ayaan ka soo dheeraadheerinay barnaamijkii hor yaalla asaga ah saas daraadeed waxaan leenahay annaga oo victim u ahayn rejiimka hadda waqtigiisa dhamaaday waxaan diyaar u nahay inaan gacan u fidino cid kasta oo dhib noo geysatay gacantaasna haddii aadna doorataan oo fursad noo siisaan xildhibaanada labadiina aqal dadka Soomaaliyeed kala irdhoobayna inaan ku raadino gacantaas ayaan diyaar u nahay oo dib u siin dhab ah aan Soomaalida ka sameeyno ayagoo garowsan haddii annaga aan tanaasulnay ayagana inay tanaazulayaan annagoo garowsan ayaan halkaas rabnaa inaan ka arbaqaano waxaan rabaa inaan laba qodob uga noqdo khudbadii aan jeediyey 2016 oo golaha sharafta la u jeediyey labadaas qodob waxay yihiin suurad ku jirta ay suuratul kahfi ku jirtay oo ka hadlaysay dalqarnayn iyo wixii dhex maray qoladii tabaalisneed oo weydiisatay inuu gacan siiyo oo waliba ayagoo dhahay waxaan ku siinaynaa kharaj adigaan dhaqaale ku siinaynaa qaaluu in yaajuuj wa maajuuj mufsiduun fi al-ardi fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum saddan dhaqaale aan ku siino oo kharash aan ku siino annaga qoomkan yaajuuj iyo maajuuj lidaado taad noo kala xidhisay ku yiraahdeen asagana wuxuu ugu jawaabay qaala ma makanni fihi rabbi khayr fa'iinuni biquwa waxa ilaahay imakaniya iga khayr badane awood igu kaalmayo dhahay awood waxa haystay ayaga ahaayeen hatta idha sawa bayna sadafayn khalan fuqu markuu labadiisa isku soo dhaweeyay ayaga uu yiri afuufa aatuni zubal alhadid wala markii hore zubarka xadiidka ay haystaan ii keena waxa awoodooda iyo zubarka xadiidka iyo waxa dhan la isticmaalay ayaga ahaayeen taasoo macnaheedu yahay dalkan Soomaaliyeed khayraada ku jira bashar awood lahayn joogo Soomaali yiraahdo oo dawlad la'aan wax kasta ayaga samaystay hadday tahay koronto
hadday tahay biyo hadday tahay bangiyo hadday tahay diyaarado hadday tahay waddooyin hadday tahay jaamacado hadday tahay iskoollo dadka ayagaa samaystay waxa ay la'yihiin waxaa waaye hoggaankaasoo kaletaa dalqarnayna oo awooddooda ama potentialitigooda uga faa'iideeyey oo uga faa'iideeya khayraadka ay haystaan oo uga faa'iideeya dadnimada ay leeyihiin ee soomaaliyeed ayay la'yihiin dadka waxay la'yihiin waa intaas sidaas daraaddeed barnaamijkayga siyaasadeed wuxuu ku salaysan yahay 5 qodob 5taas qodob waa 5ta maalintii dowladda la dhisay ee Soomaali carta isugu timid lagu heshiiyey in la fuliyo laakiin nasiib daro 5 maamul oo isbedesho kan hadda joogo u dambeeyo 5taas qodob waxba kama qabanin anigana waxa aan ballan qaaday waxay tahay inaan 5taas uu xoog saaro si kooban hadda uga hadlana waxa waaye midda koowaad oo ah dhamaystirka dastuurka waa dastuurka in la dhamaystiro maxaa ahmiyad siinaya dastuurka in la dhamaystiro dastuurka in la dhamaystiro waxaa ku jira dib u heshiin siyaasadeed ku dhex jirta dib u heshiin siyaasadeed haddaan maqashid dastuurkay ku dhex jirtaa say ugu dhex jirtaa waxay u dhex jirtaa waxa la isku hayaa waxay tahay awoodda iyo sida loo isticmaalayo sida loo qaybinayo hadday tahay heer federaal iyo hadday tahay heer dowlad goboleed waa qodob saasoo kale khayraadka dalka ku jira sida loo qaybinayo laftiisa waxa la isku haysto ka mid yahay deeqaha dalka soo gala ama dakhliga soo xarooda sida loo qaybinayo iyo sida loogu qaybsanayo intaba loolanka siyaasadeed ee siyaasadda lagu barantamayo sida xanafta looga ilaalinayo oo mid madaniya looga dhigayo waxaasoo idin waxaa waaye dastuurkay aasaas u yihiin asagay ku jiraan haddaan marka qodobadaas laga hadal dastuurka lagu dhammaystirin ma dhacayso dib u heshiin siyaasadeed sida hadda aan sheegay min boosaas ilaa igada la isku dagaalsan yahay iyo dagaalka u taagnaa doonaa sababtoo ah dagaalkaas waa dagaal siyaasadeed waa inaan ogaanaa maaha dagaal daaqsin iyo dagaal xadeed iyo dagaal beeleed maaha waa dagaal siyaasadeed dastuurkii marka 5tii maamuleena soo dhaaftay dastuurkii ma aysan dhammaystirin dastuurku wuxuu u baahan yahay in la dhammaystiro go'aan dhiirasho loo u baahan yahay wuxuuna u baahan yahay hoggaanka dalka inuu political will wax la yidhaahdo uu hoggaansan ama rabitaan siyaasadeed xaggiisa oo ka yimaado qodobka labaad waa doorasho qof iyo coda doorashada aan maalin kasta qabanno oo 5tii maamul ee soo dhaaf ay qabanayeen waxay ahayd doorasho marna odayga wax soo qorayo marna ergo wax soo dooranayso iyo tii ugu dambaysa dowlad goboleedyada ay soo magacaabayeen xildhibaanada aan ku soo dhammaanay oo ayaga dhan musuq iyo gacanka hadal iyo dhibaato ay ka abuurmaysay oo qofku asaga leeyahay xildhibaanka anaa keensanaya taasi looga baxo oo awoodda shacabka loogu celiyo waxaan u baahannahay in doorasho qof iyo cod la qabto 5tii maamul ee soo dhaaftayna ma aysan qabanin midda saddexaad waa dhismaha ciidan qaran marka aan leenahay waa ciidan Soomaali u dhan tahay gobolladeeda iyo qabaa'isheeda u dhan tahay waa ciidan siyaasadda ka madax bannaan oo dastuurkii sharciga ilaalinayo ma aha keliya dareeskiisa inuu qurxan yahay mishaarna inuu qaato maaha waa ciidan xeryo ciidan ku jiro waaye ee xaafadaha aan ugula noolayn oo jidadka aan taagnayn ciidankaasaa la yidhaahdaa oo ah ciidan ilaalinaya waajibka qaran ee asaga aan saaran ee madaxda aan weeraraynin mucaaradka aan jidka u galaynin kuwa mudaharada aan xabadaynaynin ciidankaas waa ciidankaas sheegayno oo ciidan qarana ciidan qaran haddaan dhisannane amisomna waa naga maaransiinayaa al-shabaabkane wuu naga celinayaa taas waa qodobka saddexaad midka afraad waxaa waaye ka gungaarista wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland 5tii maamul arrintaas ma aysan ku gungaarin in Soomaaliya iyo Somaliland ay wada hadlaan oo meel la saaro oo tabashada ay qabaan walaalaheen iyo waxa ay damacsan yihiin oo ay ka damacsan yihiin ayatiinka wada hadalka lagala hadlo ma aysan dhicinin wada hadallo iska shirar ah oo aan anjado lahayn oo aan road map lahayn oo milestones aan lahayn oo aan qorshe meel ka bilowdo meel ku dhimaado lahayn oo ajadayaasha wada hadalka laga wada hadlayo waxay yihiin aan lahayn oo Soomaalida dowladda federaalka ay heshiis ku ahayn sida loola hadlayo Somaliland ayaa soo dhacay midka shanaad waa maqaamka caasimadda gobolka Banaadir oo ah in meel la saaro magaalo 3 milyan ku nooshahay oo meeyarkeeda maalin kasta madaxtooyada laga soo magacaabayo oo dakhligeeda iyo canshuurteeda aan loo qaybinaynin service lagu qabanaynin dadkii ay ka imaanaysay reer Muqdisho waayo qodobka shanaad 5taas qodob oo hal bowlo u ah dib u dhiska dowladnimada 5tii maamul ee la dhaafay ma aysan qabanin barnaamijkayga si faahfaahsan ayay ugu taallaa ayna ugu qoran tahay inaan wax ugu qaban doono walaalayaal dalkan wuxuu u baahan yahay hoggaan adkaysi iyo dulqaad leh
hoggaan karti u leh inuu dadka ka soo horjeeda aqbali karo hoggaan karti u leh inuu dadka inta ka ra'yi duwan xamili karo hoggaan karti u leh inuu baarlamaanka uu ka ra'yi duwanaan karo sidaa og tihiin labada aqal ee baarlamaanka dastuurkeenna annaga iyo dowladnimadeenna waxaa asaas u ah baarlamaanka waa parliamentarian ma aha presidential ma aha system oo madax ka noolehe ma aha systemka waa system parliamentariana sidaas daraaddeed sovereigntiga ama waxa siyaadada liidaada madax bannaanida qaran waxay taallaa baarlamaanka ayay taallaa taas ayaana qasab ka dhigaysa in baarlamaanka uu noqdo awoodda ugu sarraysa madax kasta ee timaaday dalka ee soo martay baarlamaanka waa awood tireen waxay ku awood tireen inay guddoomiyaasha baarlamaanka iska beddelaan inay madaxdii la shaqaynayso ra-iisul wasaarayaasha iska beddelaan inay xukun ka tuuraan haddii ra-isul wasaaraha kale ra'yi duwanaadaan hadday guddoomiyaha baarlamaanka ra'yi duwanaadaan inay xil ka tuuraan saas ayaana instability ama xasilooni darro siyaasadeed oo dalku soo wajahaya wuxuu u baahan yahay dalkani saan sheegay hoggaan dulqaad leh hoggaan aan laga cabsanayn laakiin laga hebaysanayo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay hoggaan aan loo guulwadaynaynin laakiin la ixtiraamayo ixtiraamka dadka inaad ka kasbato ayaa la rabaa ee inay kuu durbaantumaanay kuu guulwadayaan lama rabo hoggaan dulqaad leh hoggaan dhimrin leh hoggaan turis leh hoggaan tawaaduc leh tawaaduc ereyga ugu muhiimsan waaye tawaaduca muxuu yahay waa inaa ruuxa liidarka ama hogaamiyaha qaladaadkiisana oo aqbali karo oo garashiyo ka bixi karo tabartiisa iyo nuqaada dacfigiisa ama meelaha uu ku liitan uu garanayo oo cid ka caawisa uu heli karo walaalayaal adduunka aan joogno maanta adduunkii hore maaha waa adduun tartankiisa oo batay tartankiisa oo xoogaystay khudbadii ugu horreysay 16 waxaan ku sheegay inay nagu soo socoto geopolitics ama loolan juqraafi siyaasadeed oo khaliijka nooga imaanayo sanad markay dowladdu joogtay mushkiladaas way qabsatay khudbadii baarlamaanka uga digay midka hadda ka digaya waxay tahay loolanka geopoliticska ee adduunka markaa nooga imaanayo mad khaliijka keliya maaha ee siraaca ama loolanka u dhexeeyo shiinaha iyo maraykanka nooga imaanayo oo uga nooga imaanayo yurub oo isku dhinaca iyo maraykan iyo shiina nooga imaanayo bariga afrika ama geeska afrika waa ogtihiin qolo kasta waxay u soo magacaabatay ergey gaar ah shiina hadday tahay maraykan hadday tahay yurub hadday tahay waa area ama waa gobol maslaxad weyn laga leeyahay haddaan marka gara karin sidaan u maaraynayno arrintaas ama hoggaan aan gara karin oo yimaado oo keliya ah inuu un xilka la qabto keliya loo imaanin ee fahamkaas loo yimaado waxay u baahan tahay arrinta ayada ah inaan ka digtoonaano waxaan u baahannahay adduunka hadda waxaa yaraanaya dhaqaalihiisii si uu COVID-19 u dhacay waxaa yaraanaysa ahmiyada la siinayo waddamada Soomaaliya oo kaleeta aad u yaraanaysa xagga dhaqaalaha markii la yiraahdo haddaan leeyahay marka hoggaan la jaan qaadi kara adduunkan cusub oo waxaan ay yiraahdaan clarity official leh oo aan articulate garay karin issue dalka leeyahay oo aan formulate garay karin institutionka democraticska oo ay ku xiran tahay deyn cafintii wixii lamid ah haddii aan la helin dalkani halis ayuu ku jiraa sidaas daraaddeed waxaan u baahannahay in aan arrintaas iyada ah aan guntiga isaga dhigno oo aan samayno dadaal fara badan aan samayno meesha ugu dambayso aan uga baxayo waxay tahay waxaan u baahannahay in doorashadii soo dhacday waan ogahay xildhibaano badan oo halkaan fadhiya oo labada aqal ee baarlamaanka ku jira qaabka ay ku imaadeen dhammaanteen waan is ognahay waxay ku imaadeen duruufo oo ayaga raalli ka ahayna lagu soo saaray sidaas daraaddeed markay codka dhiibayaan waxay fiirinayaan duruuftii ay ku soo baxeen iyo damiirkooda labadaasaa loolan ku jira duruuftii aad ku soo baxday iyo damiirkaada aad ku codaynaysay labadaas loolan ayaa ku jira haddii qof abaal kugu leeyahay abaalka qarankaa ka weyn annagoo og in xildhibaanada la soo magacaabay oo dad soo magacaabeen oo aysan tartan ku imaanin oo ay dad tartamaya hadda jeebabka ku wataan xildhibaano ay soo magacaabeen ayaan oggolaannay inaan tartanno taas inaa ogaatiin waayo waxaan u oggolaannayna waxay tahay danta Soomaaliyeed saas ku jirtaan garowsannay sidaas daraaddeed damiirkiinna iyo duruuftiinna waxaan rajaynaynaa inay damiirkiinna ka xoog bato duruufta aad ku soo baxdeen oo dalka aad ugu helisaan hoggaan daacad ah oo dulqaad leh inaad u doorataan waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi